kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiin meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Hal-abuur. Toddobaadkan barnaamijka Hal-abuur waxaa marti ugu ah suugaanyahanka Soomaaliyeed iyo sidoo kale musicianka Soomaaliyeed ee CD Cali Wiike. In badan dadka Soomaaliyeed ee nagu xiran ayaa soo codsaday maantana Allah ayaa nagu simay in stuudiyeena uu soo gaaro. CD Cali Wiike ku soo dhawo stuudiyeena. aad iyo aad stuudiyaha Hubaal maamulkeeda iyo shaqaalaheeda maareynteeda intaba waxaan leeyahay aad baan ugu dhawahay. waa mahadsan tahay waxaan rabnaa aniga iyo daawadayaasha CD Cali Wiike oo heesay waa aragnay isagoo muusig garaacay oo aragnay taariikhdaada oo kooban inaan la wadaagto. Okay, taariikhdeeda horta anigu waxaan dhashay 1969 kacaanka la dhashay. waa yartahay 69 yaan dhashay. waxbarashadeeda ugu horeysay markaan soo barbaaray iskool Vinton aan ku soo barbaaray xaggaan macnaha koowaad iyo labaad ilaa iyo shanaad ka dhiganayo. kadib iskool waa bir cusub ayaan lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad kadib waxaan uga baxay iskool Raawgaas anoo macnaha fasalkii 13 joogo iyo dagaalkii ugu dhacay. marka waxbarashadeeda dugsi sare xaggaas macnaha waxay gaartay galaaska 13aad. taariikh nololeedkayga anigu waxaan ahaa ciyaalkii kacaanka ku soo barbaaray. waxaa la soo kulmay waxbarasho lacag la'aan ah. waxaa la soo kulmay dhakhtar lacag la'aan ah. waxaa dad isjecel oo isqadariya walaaltinimada jecel iscaawiya istaakuleeya oo qalbi saafi macnaha ayaan ku soo barbaaray. anoo 10 sano jira ayaan macnaha waxaan ka mid noqday maxaa la yiraahdaa ubixii kacaanka ee ugu horeeyay xaafadaan ku dhashay oo la yiraahdo degmada waa berigii xaafadda kooda Maajo. xagga ayaan ku soo barbaaray 12 sano markaan gaarayna macnaha waxaa la wareejiyay degmadii macnaha ninka ugu firfircoon waxaan ahaa xaafadaasi dhalinyarada yar ee soo kobcayso ubaxa ninka ugu firfircoon ahaa. marka degmada waxaa laga xuli jiray 4 waaxood dhalinyaro 4 waaxood ayaa laga xuli jiray oo degmada lagu wareejir jiray macnaha ubaxii waxay matali jireen oo degmada ay matali jireen. kadib ubaxaasaan ka mid noqday 82kii ilaa iyo macnaha 84kii meeshaan macnaha ku soo bilaabay xataa musicianka waxaan ka bilaabay waxaan la yiraahdo darbuugada boongaha ayaan ka bilaabay. kadib haddana waxaa ila sii qurux badnaatay inaan macnaha bahalkan organka aan barto laakiin waxaan ku soo bartay bahal la yiraahdo harmonic fiis harmonic la yiraahdo oo saa loo socodsiiyo. hadda wadankeena wuu ka suulay badanaaba ma lama isticmaalo. kadib waxaa usii gudbay heer gobol degmo waa ka gudbay heer xaafad heer degmo heer gobol ilaa waxaan gaaray heer qaran. muusika ku horeysaad sheegtay heestaadii kugu horeysay ma xasuusataa aad qaado? waa xasuustaa heesteedii ugu horeysay anoo ubax ah yaa lay dhiibay oo macalinkayga Allah u naxariistay macallimiin badan oo anigu macnaha barbaarinteeda qayb weyn ka soo qaatay. Allah u naxariistay macalinkayga Cabdi Xuseen Jaamac Cali Cabdi Soomo Allah u naxariisto Xuseen Dheer Allah u naxariisto Macal Muumin Cali Aadan Xuseen maamooyin xataa waxaa jirtay maamooyin soo macnaha oo barbaarinteeda shaqo kule oo sida islaanta oo macnaha difoosaha weyn u ahaa ay celiyo kale Bibi Xuseen Shangolo salaan la yiraahdo islaan dhimatay Aamina Dhuxulo la yiraahdo waxbarashadeeda iyo macnaha kobcinteeda waxa ku lahaa maadaama dhalinyaradii xilligaas macnaha waqtiga ubaxa jiray macnaha
aan ugu firfircoonaa ani aad iyo aad xitaa ubaxa heesaa markay qaadaan baarsoolada u gari jiray xagga dhanka wiilasha marka adigu fan qurux badan fankaygu aad iyo aad fan qurux badan micnaa ahaa heestii ugu horeysay xilligaas kacaankaa jiray marka heestii ugu horeysay kacaankaa lagu ammaani jiray marka aad iyo aad wadani waxaan ka sheekay hees wadani oo ahaa waxaan ka sheekeynayay waxqabadku kacaanka micnaa markaasi ii qabtay waxaanahay ubadkii arlada waxaanahay ubadkii arlada asluubiyo aqoon lagu abaabinaye aydaaye kacaanko ayhiisa dhisaye iftiin soo baxaayo dhiririn ugbaad ishaadu qabato ummaddu eegataanahay awood soo korayso loo aayi doono dhibaatada ka oodan baanahay si lagaaga daaweeyo xanuunada maqaarka sida haaraha wejiga nabraha wejiga ama finanka ka soo baxa cambaarta iyo timadaadashada iyadoo loo adeegsanayo qalab casri ah waxaa ku diyaara dhakhtar khabiir ku ah daweynta cuduradaas horey u gaar Samakaal Hospital oo ku yaala degmada Hodan wixii faahfaahin lambarka shaashada kaaga muuqda